بسم الله الحمد لله وكفى على نبي المصطفى ودرسيني أفراد برنامج كيني قبترة ونوسو دياري معهد كدار العلوم فصل كأفراد دكسيغا سارة ماددي اللغة العربية كان عشر كسي هوري waxaan kusoo baranay waxyaabaha keenay suudaantii carbeed kor u kaceedii waxaan kusoo sheegnay laba arrimood inay yihiin اليقظة الوطنية هي الحركات الدينية المعاصرة كان درسي waxaan ku qaadanaynaa maanta midkii saddexaad ee keenayay kor u kaca suudaanta carbeed في عصر الحديث الاتصال بحضارة الغرب. كان اتصال الأمة العربية بحضارة الغرب في صور شتى على مراحل مختلفة. xadaaradii reer galbeedka ee jirtay xiriirkii ummadda carbeed ee la sameysay waxay ahayd suurooyin kala duwan iyo maraaxil markaa iskhilaafaysa mutataabicatan wa minha maa yaati can طariiqi التacalum isra raacsan waxaana ka mid ahaa xiriir markaa ku imaanayo waxbarasho فأصبحت في دول الشام ومصر كثير من المدارس المدنية والعسكرية. دولتها الشام هي مصر وحا هذي إن بدن ومدارستا لو يقان المدنية ومادية الغبرتو والعسكرية يكوى عيدمين. وعند تخرج الطلاب من تلك المدارس يتم إرسالهم في بعثات عملية إلى أوروبا لطلب المزيد من العلم في كافة المجالات المدنية والعسكرية. ardayda markay ka soo baxeen agteeda madaaristaas ee Masar iyo Shaam markaa ku yaalay waxaa dhammaystirmayay diristooda in loo diro maaragtay bicthaad cilmiya marka kooxa la diray oo cilmi ahaan loo diray meesha loo dirayna waxay ahayd Europa sababtuna waxay ahayd لطلب المزيد من العلم سيدا أقوان وصول زيادة reer galbeedka في كافة المجالات المدنية والعسكرية dhinac kasta oo hadday tahay madani iyo hadday tahay ciidamaynba si ay aqoon koros ugu soo helaan. وبدأ عصر النهضة في دول الغرب تطور العلم هناك waxaa bilowday casrigii kor u kaca dowladaha في دول الغربية dowladaha reer galbeedka dhexdooda kadibna تطور العلم هناك halkaa waxaa markaa تطور iyo horumar ku sameeyey cilmigii. وبدأت البحثات العلمية بالتداول بين العرب والغرب وخاصة بعثات محمد علي باشا إلى إيطاليا waxaa bilowday bicthaadkii cilmiga ahaa kooxihii markaa la dirayay sababtuna waxay bitadaawul bayna alcarabi walgarb say wax isku dhaafsadaan dowladihii carbeed dadkii iyo kuwii reer galbeedka ahaa aqoontii markaa jirtay وخاصة gaar ahaan bicthaadkii la oranayay bicthaad maxamed cali baasha diridii uu cali baasha uu diray kooxihii uu diray إلى إيطاليا. فأنشأت المدارس مثل مدارس الشام الذي قادها خريجو حركة التحديث بالإضافة إلى حركة الترجمة. وحافة في مدارس أيام ماشي كبلوضي وانتشاري أيام برباري سيدي مدارس الشام أو كلا هجاميين قالوا حركة التحديث كصوبحي markii lagu daro ayadana intishaar xarakatu tarjum iyo xarakatu tarjum ayadana faafida ay faaftay. فقد أقيمت في مصر دار الألسنة التي كانت تعلم عدد اللغات waxaa la oogay oo Masar lagu oogay madraso markaan la dhahayo daarul alsina taas oo ahayd mid lagu daraaseynayo oo lagu baranayo luqooyin badan ومنها الإنجليزية والفرنسية والتركية waxaa lagu baranay luqada ingiriiska luqada faransiiska iyo luqada turkiga بالإضافة إلى مدرسة عين طورة في الشام
waxaa kaloo lamid ahaa madrasatu caynu tuura la dhahay oo shaam markaa ku taalay. وبالتالي سيدي حكتي استطاع خريج هذه المدرسة من ترجمة الكتب الغربية إلى العربية خاصة كتب العلوم والتاريخ والفلسفة والروايات الأدبية. waxay awoodeen ardayda markaa madaarista ka baxay inay kutubtii reer galbeedka ay tarjumaan ee luqada carabiga u tarjumaan, khaasatan kutubtii culumtii sayniska ku saabsanayd iyo taariikhda ku saabsanayd iyo falsafada iyo caqliga ku saabsanayd iyo riwaayaadka adabigaba. intaba awood waxay u yeesheen ardaydii inay ku tarjumaan luqada carabiga aqoontii reer galbeedka. وقد أثرت الترجمة في نهضة العربي الحديث من خلال نقل الثقافة الغربية وعلومه إلى العربية. ما كسامين وحد يالتي مركز ترجمة دي أو سامين كو يالتي إني أدبي اللغة العربية كور أكعضو inta lagu guda jiray sooraradii la soo rarayay thaqaafadii reer galbeedka iyo culumtiisa oo carabiga loo rarayo carabi laga dhigayay. وظهرت القصة القصيرة waxaa meesha ka soo baxay waxa la yiraahdo qisata qasiira allatii lam yakun laha makaanun fi adab alcarabi, taasoo aan makaanad iyo boosan ku lahayn oo aan la garanaynin adabkii carbeed ee jiray. وإنما انتقلت إليه بالترجمة بداية marka horeeto waxay ay markaa ku bilaabatay soo rarid, وفي التأليف لاحقا markii dambena waxay noqotay in la alifo. كما انتشرت الطباعة والصحافة سيدة أفافتي طبعات دي يا صحافة دي بقى. ومما سهل انتشار الكتب بشكل أكبر بكثير من قبل، وكان من آثار الطباعة والتأسيس المطامع أن ظهرت الصحف والمجلات اليومية والدورية منذ وقت مبكر. وحوليا كان وحوها وحي سهلي وهي انتشار الكتب كتبت إني فافان بشكل أكبر بكثير من قبل سيده هوري وفافيين سكبضا. وحونا أها آثارتي مركا طابعات iyo تأسيس المطابع waxay noqotay inay soo muuqato oo maaragtay suxuf iyo maaragtay joornaalo yoomiya inay soo baxaan iyo kuwa adduuriya kuwa bileed ah inay soo baxaan oo bilo ah, waxayna soo bixi jireen muddo waqti mubakir lisaydi. فقد صدرت الصحيفة waxaa markaa soo baxayay saxiifada la yiraahdo alwaqaaع المصرية في مصر ayay ka soo baxayeen Masar sanadka 1238 hijri iyo 1828 miilaadi. iyo jariid askari la yiraahdo sanadkan wuxuu ahaa 1249 hijri iyo 1833 miilaadi. marka cashirkan wuxuu ka hadlayaa waxa ka quseeyana waxay tahay aqoontii markaa oo reer galbeedka markaa jirtay iyo aqoontii luqada carabiga aqoontii markaa jirtay waxyaabaha keenay inay markaa ittisaal ay sameeyaan waxaa ka mid ah at-tarjuma, in luqadii reer galbeedka aqoontoodii lagu bedelo luqa carabiya ayaa ka mid ah. waxyaabihii hore loo aqoon jirin oo adabiga carbeed oo lagu bartana waxaa ka mid ah alqisa qasiira oo ahayd waxaan hore loo garanaynin. marka hore tan tarjume ku bilaabatay, markii dambena laaxi bitaalif iska noqotay. marka cashirkeeni afraad intaas uu ku ogyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.